haddii fursad ama kansho lagu siin lahaa oo lagu odhan lahaa hal shay noloshaada ka bedel talow shaygaasi muxuu noqon lahaa waa su'aal aad u daaweyn waana su'aal loo baahayo qof kastoo inaga naga mid inuu ka fikiro isla markaana jawaab sax ah uu keeno soo dhawaada dhammaantiin saaxiibayaal waa mawduuca aynu ku falanqayn doono maanta muuqaalkeena ee kooban hadduu eebayd maayo waxaanu doonaynaa inaan isweydiino laba qodob oo runtii aad u muhiima waxaa jirta marka koobaad qof kasta oo inaga naga mida maskaxdiisa iyo maankiisa waxaa ku jira laba shay labada shay waxa weeyaan waxyaabo qofku uu awood u leeyahay isla markaana uu isleeyahay aad qabatid yani isla markaana uu doonayo ama uu jeclaysanayo waxyaabaha inuu qabto laakiin hadda aan hor oolin ama fursad uu markaa uu ku suurtageliyo ama waxyaabaha uu ku hirgeliyo aanu haysan waxa taa la mida in qof kasta inaga naga mida uu ka fikirayo isla markaana yani niyadda ugu jirto in berri يعني سيدو كون نولان دونو أي كوعناتو سيدو ماتا كون نولا يعني سايس كوسي حرتو يعني نولال هرمر لا إنه كون نولا دو قفكو ومالي بمالك كسيدا مسيس بدلو سميو أيو قف كستو إنا نغامي دو كفكريا وحن دوني طبعا إن لبس سؤالو دان سويدينو إسلا مركا أنا الموبل كإنتا إير يرسي أجسد آد مركا كفكر تلبدا سؤالود كي الدورة اللهيد لبدا سؤالو وحن ليهين سؤال شكوباد موحا يعني جعلان لهيد نولوش هذا إن الحرفة كسو تردسو كواسو مركا نولوش هذا هرمر وسي هرسيدا يعني كوبعيانا وحبضانا مركا أسو سيادية بس واحد جعلان لهيد أو كفكر lahayd in qayb kamid ah noloshaada isbedel ku sameeyso kuwaas oo markaa yani u horseedeen yani waxyaabaha aad doonayso waxa laga yaabaa ficilo badan oo maalin walba aad sameeyso inaanay yani ku horseedeen isla markaana ku kaxayneen jidkii markaa aad doonayso inaad gaadho markaa ama waxyaabihii markaa aad ku fikiraysay inaad markaa ka dhabayso waxyaabo badan waxa laga yaabaa ficilo badan oo yani ku diidanba ama qabashadoodu ay tahayba inaan markaa shayga aanad gaadhinba ma halkaas aad wax ka bedeli lahayd mise xirfado cusub baad noloshaada ku soo kordhi lahayd waa laba su'aalo muhiim ah loo baahan yahay markaa qof walba inaga mid ah inuu markaa isku dayo ka jawaabo haddaba waxaan isla wadaagi doonaa dhowr qodob oo runtii aad u muhiim ah dhowrka qodobna ay naga caawinayaan in markaa isbedel dhab ah aynu la imano jidka saxdaana markaa aynu qaadno waa toddoba dhinac oo loo baahan yahay in isbedel ka sameeyno yani dhammaan nolosheena oo markaa aynu aad uga fikirno qorshayaal aynu ka dejisano قدر كواد سوق هذا نوح ويان وحلو يقانا التفكير العميق في الذات قدر كاسو قدر أنتي آدم مهمة كاسو مركا إنه قفكو صح حال دار ولا فكرة الشخصية ديسة إن قفكو الشخصية ديسة ومركا واحد بدن كأولاده وحيابه القفل كفي عي هاي وحيابه مركا وكهر مرسي هاي مواهبته أولي هاي وحيابه إلهي سبحانه وتعالى كم من نايستي كواسو مركا قفل كعاون كريبة إنه كل شقق دلو إنه مركا بلشدي سيدة كيسة كعاوية إنه مركا عان كبر نقطة وحاسي قف كسنتن يعني حرفتها أما مواهبتها جار كأو نقطة مركا هو قصب إنه قفل مركا يعني نفتيسة ودح دلو واحد بدن مركا وكأولاده وحيابه wanaagsan yahay waxyaabo markaa aanu ku wanaagsaneyn ee markaa loo baahay markaa inuu iska dhiso soo kale qofku wuxuu markaa ka faa'iideysanaya inuu markaa jawaabta uu qofku iska dhisi karayo ama uu iska kobcin karayo inuu markaa si fiican u raado marka labada qodob ka soo baxdo yani inaad mawaahibtaada iyo waxyaabaha ku dhex jira aad daafurto isla markaana dibadda aad keento isla markaana aad ogaato dhinacyada aad iska dhisi karto ama loo baahay inaad markaa iska kobciso labadaas waxay ku hooseedayaan أما هي حقيقيا يعني مركز إسبدل كدبت أن ربنا أما يعني نوع إسبدل كأن ربنا أي مركز قيب وين كقاعدنا أو مركز كهور سيدين مركز قدر بكرة ده هو يعني ده دون إسبدل نروش هذا نكون سميسو وين نفط هذا برتا يعني شخصية هذا وين برتا أو واحد بدن كأوراته هدي أنا أورين بس لما كان أنا سكرين وحبق قبل كرميز صوت ما واضحين وحلاقي أبا إلى نقول عضو إنه وقتية بدن أما سنة بدن أن كل منه أما إنه برنا بوحيابا مركز أن فائدين والله مركز فائدين والله كتب وضوح ويا وحلاقي وحيابا أنا كفي عينات برتا وحلاقي أفر سنة دقيقة إن المركز أنت سوقة تهدو أترادني وقف شيئا أن مبان دونين با أما وحن مبان عليهم با وعلى يابا الشخصية هذا مركو رمى الدرين سيف عن سكومات بارين واحد عشر ما دورا واحد مركا هباء الله هاي ما دورا واحد كلا دورتي وحيابا فربضنا كلا إن تكون دورتين وصورتك يعني الشيء قاعد دورتي لكن آخر واحد نقطة إن أنا مركا شيء مناسب كوهين مركا أنت وقت بدأ نقدر يعمل لها يعني إسبدل لنا إنه مركا لا إيمان كرواي لهين ومهمة إنه مركا واحد بدأ نقول أنا نفتين قدر كلامنا سوق هذا إنه وحويان اللي هو بهي قف مركز يسبدل يعني شخصيات وصماني إنه مركز الله يماضو وحلو يقنا التبني النقد الذاتي أما التبني النقد الذاتي يعني قف وين وأقبله يعني دورتان كشخصيات وسكو صماني أما عيد كلامك أيكو صمانيسو هدي عيد كلامك أيكو شيرتو أما أيكو لطي ماضو وحيابا مركز أتكون عسنين أما وحيابا أنا كوفي عينين أو مركز قف كاسكا أرتوا إن سيدة وقاتا إسلام مركز أنا مركز صحتان إيه مركز يسبدل أتكو صميسا صورة لو قف واحد مهمة إنه مركز قيمين شخصيات وسكو صمايو أما يسوي تستيع استقاضه وتستيع حجر قفك استقاضي كريه أما قفك عد كلا بهوديو مركا عد كلا هورو ورنت إيه وإنه مركا وحيابها أنا كو ونعسنين إسلام مركا أنا وكل أما شخصيتي سواء يعني وحيابها الضعف جاي اللي ضحي وإنه سيد أوقاتها وقف أقبل كريه وإنه نقضها ما أنت إنه أقبلنا يعني دي بعتدينا ما أنت أقبلنا فشل كينا ما أنت إنه أقبلنا وحيابها أنا كل يعني كفعنا أما كل دونه ومركز تو إنسبدل أنه كسمة كرنا ومركز تو مركا أنه مركا يعني شيء كون إنسان لا إما كرنا لكن أنت الدفاع كنتنو وحما مركا لا إما كرمينه سدر دو وحا مهمة وقفك
qofku inuu si dhab ah intuu isku fiiriyo uu markaa baaro waxyaabaha aanu ku wanaagsaneyn isla markaana uu isku dayo inuu markaa isbedel dhab ah uu la imaado maalinta markaa aynu aqbalno isla markaana diyaar u noqono markaa waxyaabaha aynu aqbalno inaan markaa isbedel ku sameyno waxaynu qaadnay soo kale markaa jidkii aynu isbedelka ku sameynay shakhsiyadeena mid ka wanaagsan maanta aynu joogno ay diyaar noqonaysay qodobka saddexaad ee soo qaadanayna waxa weeyaan waxa loo yaqaan taxdiid al-ahdaaf wa khudat al-amal inta markan ka soo gudubnay ee markaa yani aynu tafkiir cumqiya ku sameynay ama si xeel dheer aynu shakhsiyadeena uga fikirnay qodobkii labaad markaa aynu aqbalnay waxyaabaha aynu ku liidano ama dhinacyada farabadan aynu ku liidano qodobka saddexaad waxa weeyaan qofku markaa inuu ahdaaf yani shakhsiyadeed ama ahdaaf guud oo nololeed uu dejisto isla markaana uu khuddo iyo qorshe maalinle ah oo shaqo markaa uu sameeyo yani qofku ahdaaf nololeed oo guud buu leeyahay marka ahdaaf ka yar waa inuu qofku sameystaa isla markaana markaa qorshihii markaa uu ku meel mari lahaa oo markaa uu la imaado qasab waxa ah markaa in ahdaaftaada markaa ay noqdaan qaar suurtagal ah qaar waqti markaa lagu qaban karayo leh qaar macquul oo markaa la sameyn karayo laakiin waxyaabaha aan la sameyn karin qofkana shakhsiyadiisa aan markaa suurtagal u ahayn haduu maanta la imaado de waqtigu uu qofku isku laminaya markaa waa muhiim inay markaa yani noqdaan smart goals yani waxa loo yaqaano yani qaar smart ah isla markaana yani tijaabadii smart goals wixii la oran jiray markaa soo maray yani dabcan waa qaacida lagu tijaabiyo marka ahdaaftu suurtagal ma yihiin mise suurtagal maaha ama qaar sax ma yihiin mise qaar sax maaha marka waa qasab in marka ahdaaf ay ku dejisan isla markaana qorshe maalinle oo ku socoto markaa ay leeyihiin qodobka afraad ee soo qaadanayna waxa weeyaan waxa loo yaqaan al-iltizaam wal muthabara yani qofku inuu joogteen iyo markaa dhabar adeeg la imaado labada qodobi waa laba qodob runtii aad u muhiim ah yani dhibaatooyinka faraha badan ee markaa aynu la kulmi karna aynu kaga gudbi karayno yani waxa loo baahan yahay yani dhibaatooyin fara badan baynu soo yani wajahan isla markaana qofka ku iman karaya yani noloshuna waa dhibaatooyin waa caqabado marka kugu soo wajahan maaha yani inay yani ku imanayaan oo qasab ay tahay laakiin waa muhiim waa laga maarmaan qofka inay dhibaatooyin ay ku imaadaan marka dhibaatooyinka kugu imanaya waa inaad markaa laba qodob kaga gudubtaa kow waxa weeyaan waa inaad markaa yani joogteen aad ku samaysaa shaqadii maanta kaa fashilantay waa inaad joogteen ku samaysaa beri ka maalin aad la timaadaa sidoo kale waa inaad dhabar adeeg aad markaa la timaadaa laba qodob oo saacidaya baa jira oo markaa yani qofku doonitaan fara badan inuu la imaado iyo markaa inuu dadaal fara badan la imaado labadaasna waxay si weyn kaaga sii caawinayaan in markaa shaqadii aad markaa si fiican usoo joogtayso dhabar adeegna aad la timaado waa doonitaanka dhabta ah ee xooggan iyo sidoo kale markaa dadaalka yani xooggan qofku la imaado labadaa qofku hadduu la imaado cid hor istaagi karta oo ma u diidi karaysa waxa uu doonayo haba yaraatee ma jirto waa doonitaan dhaba hadduu qofku la imaado iyo markaa dadaal fara badan hadduu qofku la imaado waa laba qodob runtii aad u muhiima oo markaa ku waajihi karna ama kaga hortagi karna caqabad walba markaa inagu timaada iyo hawl walba markaa doonayna inaan si fiican uga dhamayno haddii labada qodob ay la imano waxa xaqiiq ama hubaal ah in si fiican markaa aynu gaadhano meel fiican aynu saarayno qodobka shanaad ee soo qaadanayna waxa weeyaan waxa loo yaqaan at-ta'allum min al-akhta yani gafafka maalinlaha aynu galayno waa inaan wax badan ka baranaa يعني wax badan waa inay nooga kordhaan isla markaana yani inta nolosha aan ku jirno gafaf fara badan iyo waxyaabo badan baa inaga dhacmaya fashila badan baan gelinaa waxyaabo badan baa laga yaabaa inay noo suurtageli waayaan yani dhammaan waxyaabahaas oo waa inay noo noqdaan darsun qayim yani 10 qiimo badan waa inay noo noqdaan oo wax fara badan markaa aan ka barano sidaa darteed waxa loo baahan yahay waxyaabaha markaa yani gafafka aynu galano waa inay markaa dhiirigelin inoo noqdaan 10 wanaagsan aynu ka barnaa wadadii markaa shalay aynu marnay ee noo suurtageli weyday ee markaa sax inoo noqon weyday waa inaan bari ku noqon wixii markaa yani ka dhigay in markaa qaldameena ama shaygaas aan ku fashilna waa inaan bari la iman yani muhiimada yani ugu muhiimsan ee qofku markaa wax ka baran karayo ama qaladkiisa wax uga baran karayo oo taas weeyaan saddeed markaa waxa muhiim ah inta nolosha ku dhex jirno yani inaan ka fikirin qaladku inuu qalad kaliya yahay laakiin aan uga fikirno inuu markaa fursad aynu wax ku bedeli karno ama yani aynu isbedel kaga sameyn karno inuu markaa soo kale yahay marka waa muhiim in markaa qaladka aynu ku fiirino markaa aragti aynu wax kaga bedeli karno yani maalmaha soo socda ama waxyaabaha soo socda ama markaa qorshayaasha dambe markaa aynu sameyn karano qodobka u dambeeya soo qaadanaya waxa weeyaan waxa loo yaqaan al-bahth an dam yani qofku waa inuu raadiyo inta markaa nolosha ku dhex jiro in markaa cid ay saacido ama markaa ay taageerto taageeritaanku waa wax aad runtii u muhiimsan يعني waxyaabo badan oo markaa waqti badan inaga qaadan lahaa ama yani in badan aanu soo jiitana inaga qaadan lahaa ayaa wax laga yaabaa qof ama laba qof inay si wacan kaaga caawiyaan marka haddii noqoto qoyska haddii noqoto markaa familiga aad markaa leedahay haddii noqoto markaa saaxiibada haddii noqoto cid ka baxsan oo markaa aan intaaba ahayn waa in qof kasta oo caawimaad ka dalban karayso ama kaa caawin karaya ama waxaan aad samaynaysa iyo hawshan aad ku jirto expert ku ah ama khibrad u leh waa in markaa yani caawimaad dalbataa taasoo markaa kuu soo yareynaysa juhdigii fara badnaa aad sameynaysay waqtigii faraha badnaa kaaga baxay yani qarashkii faraha badnaa kaaga baxay intaas oo dhan waxyaabo ka yareynaya ay kamid tahay marka qasab waxa ah in markaa aynu la imano isla markaana aynu ku dadaalno waxa
waxa loo yaqaan markaa taageeritaanka yani inaan aqbalno in cid kale ina wax naga caawin karto in cid kale naga aqoon badan tahay in cid kale markaa yani shayga ama hawsha aan ku jirno ay markaa inaga wanaagsantahay taasi markaa waxay inaga saacidaysaa in markaa yani qofka kale ama dadka kale ayna siiyaan haritaan isla markaa ayna siiyaan markaa waxyaaba markaa aan ku guuleysan karno hawshana markaa si fiican ay nagu dhici karto marka waxaa qasab ah inaan ku dadaalo dadka kale markaa xiriir fiican inta la sameeyno ama connection fiican inta la sameeyno in waxyaabaha markaa aan ku dhex jirno in naga caawiyaan markaa qayb kamid ah ay noqdaan طبعا qodobadan aad baan u soo koobay yani si kooban oo aad u kooban mid walba uga hadlay laakiin mid walba wuxuu u baahay in si fiican loo dhexgalo si fiican loo tafatiro si fiican markaa loo hadlo marka YouTube keena ayna wax badan kaga hadalnay oo markaa qodobadan iyo qodobo la mid ah aynu markaa si fiican ugu falaqeynay halkaas ka soo daawan kartaan aad baan islaamiye dhamaantiin waa inoo muuqaal dambe oo xiiso leh